marka waxaan rabaa inaan siiyo panelista xiga Mr. Bashar adoo ku bilaabay magacaaga saddexan iyo company-ga ka socotid iyo soo kale noo qeexaya waa maxay awoodda xiriirka kobaca ganacsiga. alxamdulilah thumma salaatu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam magacaygu waa Bashar Maxamuud Cabdi waxaan ka socdaa Xadiid Industry Group runtii waa u mahadceleynaa arkaan oo muddada ay jirtay hawsha haysa aad u kala duwan yihiin sidoo kale dad nooga haboonana meesha way fadhiyaan marka naga raali ahaada marka su'aasha dan hore u galo waxaan caawa meesha u fadhino waa B2B markii B2B tahayna way ka duwan tahay markaad customer caadi aad raadinayso oo sida caadiga go'aanada waxay ka go'aan company-ga ka go'aan marka company markaad approach gareynaysid waa inaad fiiriso dadka cidda go'aanka iska leh waxa laga yaabaa in leadership-kii ay yihiin wuxuu u baahan yahay qaabkaad u approach gareynaysid qaab ka duwan qaab kale caadiga waxay u baahan tahay partnership xog leh marka qaar waxa laga yaabaa in businessyada qaar dadka ku xiran oo business to business-ka ah inay u arkaan inay mar walba waxay u baahan yihiin ay la socdaan oo wax is dhaafsan karaan laakiin waxa muhiimka waxay tahay mar walba inaad istaraatiijiyad qeexan aad ku wajihi kartid marka aad rabto maaragtay business to business-ka waa maasantaa Mr. Bashar si fiican oo soo koobtay hal su'aal oo waxaan rabaa dhammaan inaan idin weydiiyo su'aashan waxaan ku bilaabaynaa walaasheen Mr. Khayriya su'aashu waxay tahay haddii ganacsi Soomaaliyeed uu hal xiriir kaliya mudnaan siin lahaa sanadkan hadda aan joogno kee ayuu noqon lahaa waa maxay xiriirka mudnaanta siin lahaa ganacsiga hadda jira soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim anoo soo koobaya waxaan dhihi lahaa information ama warbixin horta su'aal walba waxaa fiican wadanka ama dalkii markaas oo munaasib ku yahay ganacsigiisa in lagu dabaqo maadaama engineer-ka dhahay Soomaaliya kaliya ku dabaq as leeyahay abaayna dhahde dhanka oo information-ka anaan waxa dhihi lahaa in yani sida daayna engineer-ka Januuni iyo teamka kale Cabdullaahi Siyaasi ka dhawaajiyeen in shaqaalaha ama dadka la dhiso si toos straight forward ayadoona laga hakanaynin la dheheen isaan way si full aqoontooda iyo tayadooda shaqo iyo galista suuqooda la hagaajiyo that's all waa maasantaa Mr. Bilaawe Cawaale rabaa inaan siiyo Mr. Cawaale ganacsiga Soomaalida haddii la dhihi lahaa hal mid xiriir yani diiradda saaraan midkee ay ahaan lahayd midkay diiradda saar lahayn bismillah waa maasantahay kolley aniga waxaan isleeyahay horta Soomaalidu waa adagta aan isjilcino engagement-ga iyo ka warqabka macaamiisha aad ay muhiim u tahay weliba hadda daraasadooyin ugu dambeeyey adduunyada waxaa la sheegaa macaamilku price iyo kaagama tagayo laakiin hab macaamilka waxbaa ugu badan hadda anaga dhexdeena waa is arteen Soomaalida waxa ugu badan oo qofka Soomaaliya ka walwalo wuxuu ku weydiinaa niyo meel heblo ayaan wax ka rabaa wasaaradda Hiblaayo niyo ma iska daysido kula nin dhib badan jooga meeshaas marka waxaan dheeraanay Soomaalidu ha isjilciyaan intaasaan kulay maarta aan ku dari lahaa wayahay anigu waxaan dhihi lahaa waa kalsoonida sababtoo ah qofku markuu wax ka iibsanayo waxa ugu muhiimsan kalsoonida marka qaar waxay kaaga baahan yihiin talo inaad siisid qaabku xataa after sale-kii saad u support garan lahayd marka waxaan dhihi lahaa waa kalsoonida